kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka uu xilligan idiin hayo Somali Live Media qodobada aad warkeena ku daawan doontaan waxa qayb ka Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya oo eriyay 7 xubnood oo kamid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka kuwa kalena magacaabay maxaa ka soo baxay shirkii ay yeesheen golaha midowga musharaxiinta madaxda dawlad goboleedyada iyo Ra'iisul Wasaare Roble xogo dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa sidoo kale wararkeena waxaad ku daawan doontaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo soo bandhigay qodobo ay hor dhigeen golaha wadatashiga qaran oo ay shir la yeesheen Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo ku wajahan magaalada Baydhabo dib u dhac mar kale ku yimid doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka oo Muqdisho lagu qaban lahaa qodobadaas iyo qodobo kale ayadu warkeena ku daawan doontaan fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe saar oo la sii wadaaga asxaabtaada sidoo kalena sii share garee waxyaabaan halkan aan soo gelino waa hagaag aan ku bilowno Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa eriyay 7 kamid ah xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka waxaana uu magacaabay 7 xubnood oo cusub oo guddigaasi ku biiraya Ra'iisul Wasaare Roble ayaa xubnaha uu eriyay ku eedeeyay in ay lumiyeen kalsoonidii lagu qabay isla markaana ay ku milmeen dhinacyada siyaasadda ee ku loolamaya doorashada Soomaaliya ee xilligan jiitanka xoogan ku socota xoga aan helay ayaa waxay sheegayaan in xubnaha la eriyay ay ku milmeen oo ay qayb ka noqdeen ololaha doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kalena ay cadaadisyo saareen xubno uga soo dacwooday kuraas si xooga loo boobay isla markaana tagi waayay deegaanadooda xubnaha ka tirsanaa guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee laga saaray leeskaasi guddiga waxaa qayb ka ah Xuseen Laki Maxamed Maxamuud Axmed Siciid Samatar Maxamed Faarax Xirsi Nimco Axmed Cabdi علي محمود فارح عبد الرحمن محمد علي محمد عيسى هيبي تضبط xubnood ayaa waxa uu Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo liiska guddiga xalinta khilaafaadka ka saaray kadib markii uu sheegay in ay ku milmeen arrimaha siyaasadda sidoo kale Ra'iisul Wasaare Roble ayaa waxa uu magacaabay 7 xubnood oo guddigaasi ku biiraya kuwaas oo magacyadooda lagu kala sheegay Ismaaciil Maxamed Axmed Fardowso Matana Bule Ayaanle Axmed Cabdulle Bashiir Axmed Yuusuf حسن محمد دعسو أحمد بره محمد عاوil warsame 7daasi xubnood oo cusub ayuu Ra'iisul Wasaare Roble magacaabay waxa uu sheegay in dhammaan lagu wargelinayo guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay dhowraan anshaxa iyo daahfurnaanta doorashooyinka ilaaliyaan madax banaanidooda kana fogaadaan ku milmidda arrimaha siyaasadda ee isdiidan Ra'iisul Wasaare Roble ayaa talaabadiisan waxay ku soo aadaysaa iyadoo ay dib u dhacyo xoog leh ay ku yimaadeen arrimaha doorashooyinka isla markaana dib u dhacii ugu dambeeyay uu ku yimi doorashadii gobolada waqooyi ka dhici lahayd magaalada Muqdisho iyadoo guddiga maamulka doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliland ay shaaciyeen in dib u dhac uu ku yimi doorasho hore loo qorsheeyay in maanta ay ka dhacdo magaalada Muqdisho isla markaana lagu doorto xubno gaaraya ilaa iyo 4 xubnood guddigan ayaa waxay sheegeen in doorashadan la qaban doono maalinta Axadda oo ku beegan 19 bisha December ee sanadkan 2022 kaasi yeeshay guddigu ma sheegin sababta keentay in dib loo dhigo doorashada 4taasi kursi balse xogo hoose aan helayna ayaa waxay sheegayaan in xilka qaadistaasi ay sii ogaayeen isla markaana isku shaandhayntaasi lagu sameynayo guddiga xalinta khilaafaadka ay doorashadan ay dib ugu dhacday doorashada Soomaaliya ayaa waxa ay soo martay wajiyo kala duwan iyadoo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu xilligan uu isticmaalayo go'aano cusub dhinaca kalena Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu shir fogaan araga uu la yeeshay golaha wadatashiga qaran kaas oo diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka dalka sida lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble wajiga hore ee kulanka ayaa waxa warbixin looga dhageystay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciro gudoomiye Ciro ayaa dhinacyada faahfaahin ka siiyay dib u dhacyada ku yimid jadwalka doorashooyinka hufnaan la'aanta laga tirinayo doorashada iyo wada shaqaynta ay uga baahan yihiin madaxda dawlad goboleedyada dalka sidoo kale xubno ku matalayay midowga musharaxiinta ayaa ka qayb galay kulankaasi oo ay qayb ka ahaayeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame musharaxiinta ayaa madaxda golaha wadatashiga qaranka ka dalbaday
in la saxo qalalaadka ka jira habraacyada doorashooyinka iyo sida ay laga maarmaanka u tahay in la dhowro daahfurnaanta doorashooyinka. Shirkan oo ku qabsoomay aaladda Zoom-ka ee fogaan aragga ayaa lagu cilaamiyay shir ka dhici doona magaalada Muqdisho oo ay isugu imaanayaan madaxda golaha wadatashiga qaranka si looga arinsado dhamaystirka arrimaha doorashooyinka. Wadahadal iyo falanqayn dheer kadib golaha wadatashiga qaranka ayaa waxay isku raaceen in si kama dambaysa loo dardargeliyo qabashada doorashooyinka kuraasta dhiman iyo in golaha wadatashiga qaranka uu isugu yimaado kulan dhowaan looga arinsanayo dhamaystirka doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble. Golaha midowga musharaxiinta ayaa hore u soo saaray qoraal ay ku cadeynayeen qalalaadka ka jira doorashada waxayna dalbadeen in la hakiyo doorashada socota balse ma jirto cid dhag jalaq u siisay dalabkaasi, taasi oo keentay in ay si toos ah mowqifkooda ugu gudbiyaan ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka. Ra'iisul wasaare Roble ayaa hore u ballan qaaday in cabashooyinka ka yimid doorashada uu wax ka qabanayo balse ilaa hadda ma jirto hal tallaabo uu qaaday si wax looga bedelo hanaanka kalsoonida musharaxiinta lumiyay doorashadana ku bilaabatay nabooba. Dhinaca kalena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ahaa xubnihii midowga musharaxiinta mucaaradka uga qayb galay kulankii ay xalay la yeesheen golaha wadatashiga qaran ayaa sheegay in kulankaasi looga hadlay sida doorashada looga xirin lahaa cabashada ku horgudban. Shirkii golaha wadatashiga qaranka iyo midowga musharaxiinta waxaan uga wada hadalnay sida doorashada looga xirin lahaa caqabadaha ku horgudban. Midowgu waxa uu soo jeediyay in kulan kafool ah la isugu yimaado si ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in mowqifka golaha midowga musharaxiinta uusan waxba ka bedelaynin ilaa laga fulinayo waxyaabihii laga wada hadlay kulankii xalay waxa uu ahaa tallaabo dhinaca saxda loo qaaday, laakiin mowqifka midowga musharaxiinta waxba iskama bedelin ilaa bilowgaas fiican uu miro dhalo oo noqdo mid lagu wada hagaago isla markaana doorashadu ay noqoto mid daahfurnan. waa hagaag weli waxaad la socotaan wararkeena saaxiibayaal. markana in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ay gaaraan magaalada Baydhabo halkaasi oo ay kula kulmayaan madaxda maamulkaasi iyagoo ka wada hadli doona arrimaha doorashooyinka. safarka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ee Baydhabo ayaa waxa lagu sheegay in lagu qabanayo shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka si ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyadu isaga xog wareystaan wax ka qabashada cabashooyinka ka taagan arrimaha doorashooyinka. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayay warar ku sheegayaan in uu qudhiisa tagayo magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed balse waqti rasmi ah oo ku beegan socdaalkiisa lama soo shaacin. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa la filayaa inuu cilaamiyo shirkan looga hadlayo doorashada iyadoo goobta lagu qabanayo ay tahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. xalay ayay ahayd markii golaha wadatashiga qaran ay kulan ku yeesheen aaladda fogaan aragga ay kaga wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo shirka si looga gudbi lahaa caqabadaha doorashooyinka ka taagan. doorashada Soomaaliya ayaa waxay maraysaa marxaladii ugu adkeyd iyo isjiidkii ugu dambeeyay kadib markii golaha wadatashiga qaranka ay soo jeediyeen in shir la isugu yimaado isla markaana shirkaasi looga hadlo arrimaha doorashooyinka. ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu dib ugu jeestay gudiyada xalinta khilaafaadka oo dhowr jeer ay cabasho iyaga laftigooda ay ka timi, waxaana uu ra'iisul wasaaruhu xukuumadda Soomaaliya uu sheegay in gudiga xalinta khilaafaadka Soomaaliya ay ku milmeen arrimaha siyaasadda ee isdiidan. xogaan hele ayaa waxay sheegayaan in gudiga xalinta khilaafaadka gaar ahaan kuwaasi xilligan laga eriyay gudiga ay si gaar ah ugu ololeynayeen madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa la filayaa in uu sidoo kale gaara ku hayo cabashooyinka ka soo yeerayay qaar badan oo ka tirsan golaha midowga musharaxiinta walow iyaga laftigoodu ay kala mowqif noqdeen. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa looga fadhiyaa in uu xilligan soo dhamaystiro doorashada xildhibaanada golaha shacabka isla markaana bishan gudaheeda ay ku soo dhamaato sida uu hore u shaaciyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. kal hore ayaa waxa uu sheegay in doorashada xildhibaanada golaha shacabka lagu soo gabagabayn doono bishan aynu ku guda jirno dhamaadkeeda, balse taasi ma muuqato oo dibadhacyo xoog leh ayaa waxay ku yimaadeen doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka. sidoo kalena waxaa jirta kuraas la boobay oo ay ka hadleen golaha midowga musharaxiinta iyo beelaha iska lahaa kuraastaasi. sidoo kalena siyaasiyiinta qaar ee u tartamayay kuraastaasi ayaa waxay sheegeen in laga hor istaagay
inay deegaanadooda tagaan. Isqabqabsiga dhanka doorashada ka jira ayaa ah mid jiitamaya ilaa hadda uusan waxba ka qaban Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, isla markaana baaqiyo badan ay soo gaarayeen oo ah in wax laga qabto doorashada boobka ah ee ka socota dalka. Guud ahaan daawadayaal warkii aad xilligan kala socoteen Somali Live Media waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.